السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا waxaan joogaa dugsiga hoose dhexe ee degmada Buurtille. Runtii waxaan sida aad aragtaan waxaan la kulanay dad raba rabitaankooda iyo mataqaana inay codkooda ay ku cilbaxaan doorashadani marka ma aha doorasho ee reer Puntland oo kaliya faa'iido ugu jirto waa doorasho midnimada Soomaaliya muujinaysa marka waxaan Soomaaliya inay ogaato doorashadan inay tahay doorasho midnimo inay sahayn doorasho wax kala kaxaynaysa asaaskii Puntland 1998kii waxay ahayd in lagu qabto doorashadan muddo 2 sano waxay maraysaa maanta 24 sano ama 23 sano annaga ka baarlamaan ahaan sida aad ogtihiinba wax kasta oo ku saabsan diiwaangelinta iyo doorashooyinka haday xeer noqon lahayd haday sharci noqon lahayd haday miisaaniyad dawlad loogu dar noqon lahayd intaba waan sameynay taasi waxay waajibaad ka tahay ama qayb ay ka tahay dhisidii Puntland oo ahayd in dadku ay aadaan doorasho oo maanta bilaamatay anigu xildhibaan baan ahay Puntland degmadana la iga soo doortaa waxaan rabaa inaan anigu kursigaygii aniga awal odayaashu xulu jireen waxaan rabaa in dhalinyaradu igula tartanto tartan aan ku galo anna wax qabadkaygii aan dadka u qabtay oo deegaanka u qabtay inaan ku tartamo dhalinyarada kalena ay ku tartamaan iyaguna inay kursigan loo soo tartamo kursigaygii waxaan dhex dhigay bulshada waxay rabtaa kursiga ayada in la igula tartamo gobol kasta iyo degmo kastana saasaan wax rabnaa ka madaxweynaha laga soo bilaabo iyo ka xildhibaanada sida in loogu tartamo sidii aad daafurkii ka aragteen oo nabadoon siidu u sheegay kuwa 20 sano jooga waa dadka boqolkiiba 30 ama 40 ah deegaankan ka waana dadka ugu mudan oo xoogsatada ah oo ah mataqaana inay guryaha dhisaan hoteelada ka shaqeeyaan mataqaana dadka adigu xoogsata iska dhig dadkaas waxa wax loogu diiday wax ku waayeen waxay ahayd habka qabaliga laakiin maanta waxay haystaan chance fursada oo ku codeeyaan waxaan aaminsanahay golaha deegaanka inay soo gali doonaan dad badan oo markii hore isu haysay dadka tunka weyn inay yihiin ama magacyada waaweyn sheegtana kuraastooda dadkaas inay qaadan doonaan waan waxaan fursada u siinay una furnay kuna dhiri gelinay Soomaalina ay noqoto inay indhahooda ku arkaan inay tahay doorashadan ama Puntland meel aan la kala xigin dana kala sheegan laakiin loo soo kala horeeyay oo aan kii shalay yimid kii soo horeeyay iyo kii ku dhashay iyo kii awal deegaanka u haydba intaba inay u sameeyeen doorashadan aad baan ugu mahad celinayaa PDRC sida mataqaana ay u daba socoto dadka fikirkooda inay u ururiso